السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتي من ملك كستون نقد دعونا إنسان ضعفاء عالمك نسود هذا وروح العالم كذي كهيني أبي نمو وناكسن يوتيوب كنا بدي بر ورك عاون الذين هنوح وجود الرون ورك أمريكانك يوروب يا أفريقيا يورك لوبضان أدان ذكور ري ورك أمريكانك مدحوينها أمريكانك دونالد ترامب أيها كهضلي شروينها دقالها الدون كي دوفس ka socda Switzerland wuxuu ka hadlay qorshe uu ku doonayo in Mareykanku uu heshiis la gaadho arrinta Greenland isagoo sheegay in aanu ciidamo isticmaalayn laakiin uu doonayo heshiis siyaasadeed taas waxay abuurtay xiisad diblomaasiyadeed ee dalalka reer Yurub hadallo oo Trump jeediyay ayaa sidoo kale dhalinaya muran caalami ah oo ku saabsan doorka Mareykanka ee arrimaha dhaqaalaha siyaasadda ee caalamka sidoo kale madaxweyne Trump maruu ka hadlayay halka waxa uu sheegay Soomaaliya in aanay dawlad ahayn oo aanay military lahayn oo aanay police ahayn oo aad ugu tuntay halkaas waxa fadhiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo shirka ka qayb galay bal waa kan in daawada isagoo hadlaya Trump Somalia is a failed, it's not a nation, got no government, got no police, got no military, got no nothing. sidoo kale xogayaha guud ee NATO Mark Rutte ayaa sheegay inuu ku raacsan yahay madaxweyne Trump khataraha ay Ruushka iyo Shiinuhu ku keeni karaan gobolka Arctic xilli madaxweynuhu ku adkeysanayo in Mareykanku uu qabsado Greenland wararkaan ka hayna Yurub sidoo kale waxaynu eegaynaa Yurub dalalka Yurub gaar ahaan Denmark ayaa si adag uga falceliyay hadalka Trump ee Greenland hogaamiyaasha Yurub waxay ku adkeysteen in Greenland aysan iibhayn ayna muhiim u tahay ilaalinta xiriirka Atlantika iyo midnimada Yurub sidoo kale waxaynu halkan ku eegaynaa wararkii Afrika madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa telefoon kula hadlay madaxweynaha cusub ee Uganda isagoo u rajeynaya guul iyo iskaashi badan sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku wajahan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya halkaas oo kaga qayb galayo sanad guuradii 9aad ee ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ciidanka cirka dalka Itoobiya kaasoo la xasuusto inuu ahaa ciidankii Soomaaliya sanadkii 1997 kii xasuuqay ee dagaalka ba'an ka geystay diyaaradahaas Xasan Sheekhna uu ka qayb galayo arrinta isagoo soo fadhiyana lagu xusi doono halka wixii ay ka dhigeen wacdaro sidoo kale Ethiopian ku guda jirnaa wali Ethiopian Airlines ayaa ku dhawaaqday inay dalbatay 9 diyaaradood oo Boeing 787 Dreamliner ah si ay u ballaadhiso xarjimaha caalamka waxaa sidoo kale jira warar caalami ah oo tilmaamaya in duulimaadyada ee socdaalka Afrika Mareykanka ay saameyn ku yeelan karaan siyaasadda cusub ee fiisaha taasoo saameyn ku yeelanaysa ganacsiga iyo tiknoolajiyadda qaaradda sidoo kale wararka naga soo gaaraya Somaliland madaxweynaha Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa ku sugan haatan magaalada Davos ee dalka Switzerland halkaas oo Somaliland ku matalayo shirka dhaqaalaha adduunka World Economic Forum madaxweyne Cirro ayaa halkaasi kula yeelanaya kulamo muhiim ah madax caalami ah oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Israa'iil ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump taasoo muujinaysa doorka si xoogaysanaya ee Somaliland kaga jirto masraxa caalamiga ah ee siyaasadda adduunka dhanka kale baleer daawada fiidiyowga saaxiibkeen kaga hadlayo arrinta ka dhacday Davos war weyn ayaa ka imaanaya Switzerland wararku waxay sheegayaan in madaxweynaha Somaliland Cirro iyo madaxweynaha Mareykanka Trump ay caawa ama berri ku kulmi doonaan Switzerland ayagoo yeelanaya shir albaabadu u xiran yihiin oo ay uga wada hadli doonaan ictiraafka Somaliland amniga iyo wada shaqaynta Mareykanka iyo Somaliland iyo sidoo kale xiisadaha ka taagan geeska Afrika iyo sidii xal looga gaari lahaa wararku waxay intaa ku darayaan in madaxweyne Trump uu mar horeba ku wargeliyay shaqaalaha aqalka cad in la diyaariyo warqadihii uu saxiixi lahaa ee ahaa aqoonsiga ama ictiraafka Somaliland
wararku waxay sheegayaan in madaxweynaha Israa'iil Netanyahu uu ka shaqeeyay sidii ay u kulmi lahaayeen Ciro madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynaha Mareykanka Trump maadaama uu labadoodaba la yahay saaxiib dhow. haddaba horta bahashu waa dhaaftay intii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Soomaalidu taqaanay. ninkii Ciraha bahashii hadduuba Trump caawa ama berri la kulmayo oo Trumpna shaqaalihii aqalka cad yiri oo ku amray diyaariya warqadihii ictiraafka Somaliland ee aan saxiixi lahaa. hadda waxa ila tahay wax haray ma leh. anuu horeyna waa u sheegay waxa yiri Somaliland haddii Israa'iil aqoonsato Mareykankuna waa aqoonsanaya. Mareykanku hadduu Somaliland ictiraafka caawa ama berri ama maalmahan siiyana waxa weeyaan waa caalamkii aqoonsaday cid ka hor imaan karta ma jirto. faransiiska ayaynu guda gelaynaa oo aad u taageeray maanta Somaliland. guddida arrimaha dibadda ee baarlamaanka Faransiiska ayaa taageero u muujiyay aqoonsiga Somaliland iyagoo si cad u iftiimiyay taariikhdeeda nabadda, xasiloonida iyo dimuqraadiyadda ka hana qaaday dalka Somaliland. tani waxay muujinaysaa horumar siyaasadeed oo weyn isla markaana u taagan fursad cusub oo Somaliland u horseedi karta aqoonsi caalami ah. dalal kale ay ku dhiiran karaan waa tallaabo muujinaysa in dalal kale ay ku dhiiradaan si ay u aqoonsadaan Somaliland. sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo ka hadlayay Laascaanood ayaa sheegay maxaabiista Hargeysa ku xidhan in tacaddi lagu hayo kuwa Laascaanoodna ay si wanaagsan u nool yihiin. ninka sidaa ayna leh waa ninka isagoo ra'iisul wasaaraha 500,000 oo dadkiisii u soo kaxeeyay Itoobiya ay ku laayeen Muqdisho. waa ninka isagoo Muqdisho ka soo degaya ay baadhaan niman madow oo Afrikaan midmadoobe riboodkiisa ku baadhaan. ninka noocaasa ay doonayeen ummadda isku daro ayaa doonaya ee waliba ummadda lacagtii hantidoodii dhacay ayaa haddana la soo fadhiisanaya waxaas oo kale. runtii waa dadka siyaasadda Soomaaliya ay ka ladilaaday. balleer daawada wuxuu jawaabay wasiirada Somaliland ka mid ah ayaa u jawaabaya sida maanta Arbacad tahay bisha koowaadna 21 tahay 2026 waxaanu jeclaysanay inaanu dadka reer Somaliland iyo dunidaba u cadeyno hadal been abuura oon sal iyo raatoona lahayn oo jeediyay nin ka mid ah kooxaha xamar madaxda ka ahaan jiray oo la yiraahdo Cali Maxamed Geedi shalay ka hadlayay magaalada Laascaanood kaasoo sheegay in maxaabiista Somaliland hayso ee ku xidhan Somaliland laga soo qabtay sool bari ay dhibaato iyo tacaddi iyo dhib ay kula kulmeen Somaliland wax deegaankoodii iyo dadkoodii. waxaan leenahay taas waa been waan waxba kama jiraan. dadka maxaabiista ee ciidanka ee ku xidhan Somaliland marka koowaad waxaan cadeynaynaa inay nabad qabaan, caafimaad qabaan, meel wanaagsan iyo si wanaagsan loola dhaqmo. anigu dawlad baanu nahay, xeerarka caalamiga ma ixtiraamnaa, dastuurkaygaan ixtiraamnaa. wax allaale wax ka jira arrintaas haba yaraatee ma jiro. waa fidno iyo been abuur iyo kicin ummadda lagu dhex tuurayo. sidoo kale waxaa jira burcadbadeed iyo soo korodhay. waxaa weli jira walaac ku saabsan burcadbadeed ka soo laabatay xeebaha Soomaaliya iyadoo warbixin la helay ay muujinayaan in kooxo burcadbadeed ah dib u dhaqdhaqaaqyo sameynayaan meel ka baxsan xeebaha caadiga ah ee Soomaaliya. waxaa sidaas sheegay AU dhafar ee badda ayaa la sheegay inay la socdaan xaaladda ay sameynayaan burcadbadeedaasi. daawadayaal habeenimo wanaagsan. war waxaan idinka haynaa caalamku waa naga intaa tan iyo inta dib u kulmayno habeen wanaagsan. subscribe-tii xalay kor baad u kordhiseen, like-tiina waad iyo comment-tiguna baad idin hadhay. sidaa xalay u kordhiseen subscribe-ta caawana u kordhiya saaxiibayaal. aad baan idin salaamayaa. bye.